بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى تضباط كهر سؤاليها يسوق قرين ضدك مستمعين تدرسيان دقيسته يعني إن شاء الله تعالى شيخ إنه كدو الأخري دونا aniga rajaynaya in sheekhu insha Allah ta'ala si fiican uu inoogu jawaabi doono su'aasha koobaad saailkan wuxuu leeyahay muxuu yahay qowlka nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri aftar al-haajim wal-mahjum macnihiisu falyatafaddal ya sheekh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. aftar al-haajim wal-mahjum wa hadith rasuulka kaleey salaatu wasalaam laga soo wariyay marka la af Soomaaliyeeyo wuxuu noqonayaa kii wax toobay iyo kii la toobay labaduba way afureen waana xadiidka culimada qaar kood ay u daliishadaan toobniinku inuu soomka burinayo. culimada yiri toobniinku soomka burin maayo oo kamid yahay al-Imam Shaafi'i rahimahullahu ta'ala waxa qaar kood xadiidkaasi ay ku macneeyeen sida erayadiisa ka muuqata oo inuu macnuhu yahay qofkii wax toobay iyo kii la toobayba soomkoodu waa buray. waxayse yidhaahdeen xadiidku waa mansuukh macnaheedu waxa weeyaan waxaa ka daba yimi xadiid kale oo xukumkiisii meesha ka saaray waxaana naskhiyey xadiidka kale البخاري كجرة أورانا يحتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم رسولك هو استوبي إسقى الصوما. علماء قار كود ويريد توبنينكم مبورية الصومك وحا أيرادين حديثك معنيه سماها قفكي وحتوبي يكيل التوبي توبنينك أي الصومك كتشبينية macnuhu waxa weeyaan waxa arrinkoodu uu ku dambayn doonaa soomku inuu ka jabo oo ka wax toobay arrintaasi waxay sabab ugu noqon kartaa inuu soomku ka jabo waayo toobniinkii uu afka ku hayaa oo dhiigii ayuu qofka ka soo nuugaya marka waxa dhici karta dhiigga wax kamid ah inuu liqo oo taadi soomka ay ka jabiso kii la toobayna waxa dhici karta toobniinkaasi inuu daciifiyo وتقدروا كريدو صومكي marka uu xajin kari waayo oo sida soomku uu kaga jabo ima toobniinka laftiisa soomka jabinaya. al-cilmiga qaar kood waxa yiraan macnu waxa weeye rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku soo baxay laba nin oo midna la toobayo midna wuxuu toobayo toobniinkii uu ku hayo markaas rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu aftar al-haajim wal-mahjum ka wax toobaya iyo kan la toobayaaba way afureen وبمعنى وحل الجاري وقت جاء فرك الشقادن هتشوتشيان وها أفران مركواقعة عين دعذا جارة أي حديث قصة بصنابيع لماذا قار كودا يلهدين وحنا أقول له تفسير كإمام الشافعي رحمه الله وإن هذا حديث كمعنيس وحويه كي وحطوبي صوم كوا كتبي كي لا طوبين وكتبي لكن حكم كاسوا حكم مرشري لكن والله نسخ يمك وحديث كاكلي ابن عباس باتسين حكم كاسي منسوخ ياهي وتوبنين كوانو صوم ككبرين كوحطوبي ياك لا طوبي والله اعلم. شيخ سائل كان وحو ليهي قف ان كريهaynin soomka weyni ama xanuun daa'ima oo jira ah awgeed miyaa uu banaan yahay fidyada inuu bixiyo mar kaliya uu wada bixiyo qofku hadii daawgeedu uu soomi kari waayo ama bas xanuun aan laga bogsan sida loo bartay soomku uu ka dhacaya qalana waajibkuma aha waajibkuna wuxuu noqonayaa inuu bixiyo raashin soomkiisii bedel ka noqda raashinkaasi waa raashin qof miskiina oo waxba haysan ama wuxuu hayaa aanay baahidiisa asaasiga wada daboolahayn raashin hal mar ku filan waa inuu siiyo ama raashin bisil ha siiyo hal mar uu ka dhergo
ama raashin qaydhina oo haddii uu karsado hal mar uu ka dhergi kara ha siiyo. taasi ayaa fidye la yidhaahdaa. marka masaladu waxay ku saabsan tahay fidyada qofku ma qadimi karaa sidaan u fahmay, oo bisha Ramadaan marka ay bilato ma wada bixin karaa miskiin, ma ku wareejin karaa raashinkii oo qaydhina, mise maalin walba maalinteeda laga bixinaya, mise dib baa loo dhigaya Ramadaan markay dhammaato ayaa la wada bixinayaa. sida saxdii waxay tahay raashinkaasi inaan la qadimahayn, waayo raashinka qofku uu bixinaya waa cibaado. cibaadadana sababteeda in laga horraysiiyaa sax maaha, oo cibaadada raashinka la bixinayo waxaa sabab u ah afuritaanka qofku waa afuray maalin Ramadaan ee da-awgeedu waa afuray ama xanuunan inta badan laga bogsan sida loo bartay. marka qofku hadduu qadimo sababtii oo weli aan la helin, maalmo aanu weli afurin oo laba gaadhin, ayaa fidyadoodii inuu sii bixiya ay noqonaysaa. waxaa dhici karta qofkaasi inuu dhintaba oo maalmaha fidyadooda la sii bixiye aanu gaadhinba. waxaa kaloo dhici karta inuu ilaahay awood siiyo uu ku soomi karo, ama xanuunkii la islahaa lagama bogsan karaba uu ka bogsado oo soomkii waxa weeyaan uu u suurto galo. marka sida saxdii waxa weeye khilaaf la-aanta ee qofka fidyadu ay kaga baxaysaa inuu maalinba maalinteeda ka bixiyo, maalintaa uu afuray inuu fidyadeedii bixiyo markuu afuray ee soomkeedii uu seegay. haddii kalena inuu dib u dhigo oo bisha maalmaha uu afuray marka ay dhammaadaan inuu raashinkiioo isu dhammaystiran miskiin uu siiyo ama masaakiinba uu qaybiyo. waana sida saxaabada qaarkood ay samayn jireen. Anas binu Maalik radi allahu canhu markii uu gaboobay uu soomi kari waayey 30 miskiin unbuu maalin isu keeni jiray, markaasuu hal mar waxay ka dhargaan siin jiray. sidaasi ayaanay fidyadaasi ay kaga bixi jirtay. wallahu aclam. baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra. saa'ilkani sheekh wuxuu leeyahay haddii aniga oo soomanaan ilig layga saaro arrinta noocaasi soomkaygii wax ma u dhimaysaa? qofka sooman hadduu ilig xanuuno oo iligii inuu iska saaro u baahdo, arrintaasi soomkiisa waxba yeeli mayso, waayo ma jiro daliil si gaara ugu soo arooro leh ilkaha haddii la iska saaro soomkuu buraya. qofkaasi mid wax cunay ma aha, mid wax cabbayna ma aha, waxa uu sameeyeyna ma aha wax u buuxin kara ama u geli kara halkii cunitaanka iyo cabbitaanka. markaa soomkiisu waxba noqon maayo. waxaase waajiba inaanu liqin dhiigga ka dhasha bixinta iligaa laga bixiyey, waayo dhiiggaasi la xukun ma aha candhuufta qofka afkiisa ku jirta. waa shay caaridoo mararka qaarkood qofka la soo darsa, weliba far badanna. marka ilig qofka laga saaro dhiig badan baa ka imanaya. waana shay markaa naadir ah, sida candhuuftii afka ku jirtay si joogtaa qofka afkiisa ugu jirtay ma aha. marka waa inuu iska tufo. hadduu dhiiggaa liqo oo ogaan dhiiggaa u liqo soomkiisu waa buraya, laakiin dhiigga haddaanu liqin iligga laga saaray soomkiisa waxba yeeli maayo. haddii ay dhacdo isagoon u qasdiyin inuu dhiiggu ku baxsado candhuufta u raaco, taasi waa masalo hore aynu uga soo hadlay. waxyaabaha qofka candhuufta u raaca ee ku muruxsadee ku baxsadaa soomkiisa waxba yeeli maayaan. wallahu aclam. baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra. sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay haddii aan cabbo isla markaana aan cuno waa suxuurtii aan kadib ay ii caddaato in waagii uu dilaacay ama waagii waxa weeye salaada subaxa loo eedaamayo ay soo baxo, cunitaanka iyo cabbitaankaas aan cunay waagii oo soo baxay soomkayga wax ma u dhimayaa? se xukunka soonkayga maalintaasi muxuu noqonayaa? asalku waxa weeyaan markuu waagu bariyo inuu soomkii bilaabmay oo cunitaanka iyo cabbitaanka la joojiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl. cuna oo cabba habeenka ramadaan ilaa waagu uu idiin caddaanayo waagu inuu bariyey aada hubsanaysaan oo kalsooni aad ku helaysaan. dabeete waagu markuu bariyo soomkii bilaaba, soomkaana wada ilaa habeenku uu soo gelayo qoraxdu ay dhacayso.
wajahada ay ka dhacdo qoraxdu ay ka dhacayso marka taa macnaheedu wuxuu noqonayaa mar haddii waagu uu bariyo inuu soomkii bilaabmo waxba aan la cuni karin waxna aan la cabbi karin waxaa xadiidka rasuulku uu ka soo reebay tirmidi warinaya min xadiidi abi hurayra haddii qofku uu maqlo aadaankii salaada subax loo eedaamaye ee calaamadda waha waagu inuu bariyey isagoo weelkii gacanta ku haya weelka uu gacanta ku haya inaanu dhigin ee baahidiisa uu ka dhamaysto waidaa samica axadukum الnidaa wاlinaau fii yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya minhu xaajatahu buri rasuulku calayh الsalaatu wasalaam haddii midkiin aadaanka uu maqlo aadaankii salaada subax iyadoo weelkii gacanta ugu jiro sharaabkii uu cabbayaa ama weelkii raashinka uu ka cunayay buu gacantaba ku hayaa yaanu dhigin buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa baahidiisa uu ka dhammaysanayo marka masaladaasunbaa laga soo reebayaa oo markaasunbuu sii wadi karaa cunitaan iyo cabbitaan hadduu xaalkiisu sidaa yahay waxaa kaleyna xusuusinayaa oo maanta xaqiiqo jirta ah aadaankeennu kuma salaysna calaamadihii shareecadu ay u dhigtay cibaadaadka maanta salaada subax waxaa hargeysa laga eedaamaa 4 iyo 30 daqiiqo muwaadiniintu waa kuwa saacaddaa eegta iyo kuwa ku dayda una masaajid laga eedaamayo markay maqlaan iyaguna eedaama waxaa shalay halkan iigu yimid salaadii jumca markaynu ka baxnay inama masaajida tukiya oo arrinta noocaasiya u fiirsaday waxay ii sheegeen aadaanku inuu dhaco aadaanka subax iyadoo weli waagu aanu baryin saaka markii la eedaamay baan dabadda u baxay masaajidka markan kusii socday ayaan eegay jihada waagu uu ka baryo waa madow habeen mugdiya ayaa salaada subax hargeysa loo eedaamaa oo dadkiina suxuurtoodii laga joojiyaa waxaa la mid oo iyadana maanta aanu eegnay annagoo dhowra masaajidkan joogna markii la eedaamayey salaada duhur iyadoo har subaxeedka weli jihadaa uu jiro qoraxdu ay ka dhacdo oo weli samada bartankeedaba qoraxdii aanay gaadhin iska dhaaf inay uga ilato xagga ay u dhacdee ayaa la eedaamay oo masaajidada hargeysa o dhan laga eedaamay oo waqtigii duhurkoon soo gelin salaadaha kale weli maanaan eegin waxaa laga yaabaa xaalkoodu inuu sidaa yahay marka aadaankeenani mid suxuur lagu joojin kara maahaba maadaama sidaa u dhacayo 5 daqiiqala ayaa dadkii u fiirsaday waaga ay yidhaahdeen ayuu waagu baryaa oo inuu waagu baryay la fahmi karaa 4 daqiiqana waa la eedaamaya marka waa in la eegto waaga oo iyadoo waagii aanu weli baryin aadaanka noocaasa iskaga xaaraantimaynin suxuurtaada mu'adiniintuna ilaahay subxaana wa tacaala ha ka baqdaan mas-uuliyad baa saaran wasaaratul awqaaf lafteeda arrintaa waa in lala socodsiiyo la gaadhsiiyo khadka noocaas ee ka jira xagga aadaanka waayo saacadahan la ysku hadlaynayaa waa saacad tan aynu xidhanoo kala oo bani aadam uu buuxiyey waxaad arkaysaa 2 masjid oo labada saacadood sudhani ay iskhilaafsan yihiin mid waxaa ku taalla cishaayiga 8 la eedaamaya ayaa ku qoran indhahaygaan ku arkay midna waxaa ku qoran 7 daqiiqo marka labadaa teebaa sax mid waxay leedahay waqtigii cishaayigu wuxuu soo galay 7 daqiiqo midna waxay leedahay maya 8 ka hor cishaayi ma jiro waxaa la mid ah xataa waqtu shuruuq waxaa saacadani bay ku qoran 5 daqiiqo soo maa 5 maalmo ka hor 5 daqiiqa ku qorayd markaad eegtana qoraxdu 6 ka hor ma soo baxdo marka saacadahan soo idinma muuqato inay waxaan la isku hadlayn karin in waxoogay waqtiga ay noo soo dhadhaweeyaan mooyaane ma wax la oran karo 100% boqolkiiba bay waqtiga ay ku fadhiyaan marka aad masalada looga fiirsado wallahu a'lam barakallahu fiik wa jazakallahu khayra saa'ilkan wuxuu yiri waxaan ay shakhsi ay ku dhaafay soomkii safar markii uu igu dhaafayna isla markaa maan qallaynin ilaa uu iga soo gaaray rabadaankii kale maxaa korkayga saaran barakallahu fiik qofka musaafirka ahaa ee maalmo soomkoodu dhaafay waxa waajib ku ahaa qalle ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safar faciddatun min ayaamin ukhar qofka xanuunsanaya ama socdaali
ruqsu u haystaa inuu iska afuro maalmaha ramadaane xaaladdaa uu ku jiro, laakiin maalmaha maalmo la tira ah oo qalla waa inuu soomo. soomkaasi waa inuu dhaco intaanay ramadaanta kale soo gaadhin. haddii ay dhacdo ramadaantii kale inay ka soo gaadho, waxaa la eegayaa ma cudurdaar baa jiray way u suurtogeli weyday sharci ahaan in uu soomkaa qalleeyo intaanay ramadaanta kale soo gaadhin, mise cudurdaar ma jirin. haddii cudurdaar uu jiray, ramadaantaa kale usoo gashay marka ay baxdo ayuu soomkaa dayntaa ilaahay uu ku leeyahy uu iska gudaya u qallaynaya, wax kale laguma laha. haddii cudurdaar la-aan qallihii uu dib u dhigay oo ramadaantii kale ay sidaa ku soo gaadhay, qof kasta oo qallo lagu yeeshay ama kaa su-aashayna weydiiyey mustafar soom uu ku dhaafay ha noqdo ama mid kale ha noqdee, waxaa waajib ku ah soomkaa inuu qalleeyo. waxaa kaloo waajib ku noqonaysa inuu fidyo raaciyo oo maalin walba qallaheeda uu raaciyo miskiin quudin, hal miskiin inuu quudiyo. waana sida ay fatwan jireen saxaabadu abu hurayre iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo, waana sida uu yahay madhabka imaamu shaafici raximah llah, wallahu aclam. saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh, hooyaday waa ay weynaatayoo soomka ma karayso, mashaakil xanuunana way haystaan, markaa korkeeda maxaa saaran? afiiduna baaraka allahu. su-aashaasi waxaan u malaynayaa inaynu hore uga jawaabnay. qofka da awgeed u soomi kari waaya ama xanuunan inta badan laga bogsani uu hayo, haddii uu yahay qof miyir qabo maankiisa uu joogo, waxaa u bannaan inuu iska afuro, qallana waajib kuma aha, fidyaana laga bixinaya maalin wal oo ramadaan ka mida oo qofkaa intuu noolaa soo martay. fidyadaasi waa hal miskiin in la dhergiyo, طcaamu miskiin, hal miskiin in la quudiyo, hal mar wuxuu ka dherga la siiyo, siduu yihi cabdullahi ibni cabaas. haddii raashin qalalan lagu siinayana waa mudku waa labadaas sacab oo laysu geeyey muggood, qofka gacmihiisu ay dhexdhexaadka yihiin, aadna aanay u weynayn aadna aanay u yaryarayn. waxaanay culimmadu marka garaam loo rago ay ku qiyaasaan mudka 600 garaam. 600 garaamna waa nus kiilo iyo rubuc, waayo kiiloogu waa 1000 garaam, markaa nus kiiloogi 500 buu noqonayaa. 100ka lixaad ee soo hadhayna waa rubuc, oo 100ka garaam waa rubuca inagu aynu isticmaalnay marka kiilooga 8 meelood loo qaybiyo, markaa nus kiilo iyo rubuc ayaa maalintiiba laga bixinaya. waxaana fiican qofka in loo raaciyo wuxuu raashinka ku hagaajisto uu kaga dhigi karo raashin uu cuni karo. waa ilaahay subxaana wa tacaala iطcaam buu cabiray, quudin raashin siin. haddaad qofkii siiso raashin buurbuuran oo kelidii markaa hadduu kariyo aanu cuni karin, dee qofkaa dhab ahaan maad quudin. saa awgeed baa wuxuu yihi alcallaama alfaqiih maxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llah, wuxuu fatwooday caalimkaa weyne faqiiha ahi, isagoo aayadda qur'aankaa ka istinbaaday xukunkaa kala soo baxay, in qofka raashinkaa la siinayo loo raaciyo wuxuu raashinkaa ku hagaajisto ka dhiga raashin hunguri mar leh oo qofku uu cuni karo. wallahu aclam. saa'ilkani sheekh wuxuu leeyahay in fara badan markaad muxaadarooyinka iyo duruusta halkan aad ka jeedinayso sheekh, waxaan maqalnaa adigoo leh xadiidkaasi waa daciif ama nebiga kama sugnaanin. taa ujeedadeedu sheekh maxay tahay? afiiduna baaraka allahu. shareecada islaamku waxaa masder oo ay ka soo maaxdo ay ku dhisan tahay 2 arrimood. mid waa qur'aanka kariimka oo hadalka ilaahay ah. qur'aanka kariimka kuma jiro waxa la yidhaahdo waa daciif iyo ma sugnaan iyo, dhammaantiiba waa mutawaatir, waa wada sugan yihi. waxna kama khaldami karaan, waxna laguma dari karo, waxna lagama dhimi karo, waayo ilaahay baa damaanad qaaday inuu ilaalinayo. inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun. ilahay wuxu uhi qur'aanka annagaa soo dejinay, annagaana ilaalinayna. waxaanu ilaahay ku ilaaliyey waxyaaba badan buu ku ilaaliyey. waxyaaba ilaahay uu ku ilaaliyey waxaa ka mid oo u muhiimsan in dadka muslimiinta ah in badanoo ka midi laabta ay ku sitaan qur-aankiiba, oo haddii lasoo daabaco kitaab aayadaha qaarkood ay ka maqan yihiin ama aayadaha aan jirin lagu daray ama wax laga khalkhalday, markiiba muslimiinta waxaa ku dhex jira kuwa qabanaya odhanaya halkaasi waa khalad.
mucjizaadka qur'aanka ayay taasi ka mid tahay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma waa aayado cadcad oo laabta ugu jira kuwa ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga siiyey isha labaad ee shareecada islaamku ay ka soo maaxdo iyo daliilka labaad ee loo cuskadaa waa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa hadalkii rasuulka laga soo wariyey ama ficilkii ama wax la yidhi rasuulku uu ka tegay oo cibaadaadka ka mid ah amaba se wax rasuulka agtiisa laga yidhi ama agtiisa lagu sameeyey ama wakhtigiisii la sameeyo rasuulku aanu diidin oo aanu inkirin kaas ayaa xadiid la yidhaahdaa xadiidku ma haysto damaanada uu haysto qur'aanku ilaahay subxaana wa tacaala ma odhan xadiidka rasuulkana waxaan u ilaalinaynaa saa qur-aanka aan u ilaaliyey xadiidka ilaahay subxaana wa tacaala si kale ayuu ku ilaaliyey wuxuu ilaahay u diray rag aqoon u leh oo xadiidka warka rasuulka laga soo wariye war jira ah iyo warka rasuulka laga soo wariye aan jirin kala saara oo markii nin diinta islaamka la dagaalamayay oo zindiiqoo gaalnimo u qarsoonayd barhka la soo joojiyey iyadoo lagu qabtay axaadiid fara badan oo been abuura uu sameeyey ayaa waxa uu doonay dadka muslimiinta inuu niyadda ka dilo oo wuxuu yihi dilkaygu muxuu idiin tarayaa maanta kumanaan xadiid ayaan idinku dhex saydhiya axaadiidaasi aada haysataan waxay culimmadu yidhaahdeen sida cabdullaahi ibnu mubaarak oo kale taciishu laha aljahaabida raggaaba u nool oo axaadiidaasi been abuurka aada samaysay ka dhex xuli doona oo ka dhex saari doona axaadiida rasuula ka sugnaatay waanay dhacday sidaas oo maanta waxaa jirta kutub fara badan oo axaadiida rasuulka loo tiiriyey ee aan rasuulka ka sugnaan ama ha noqdaan kuwa been abuura ama kuwa ay soo wariyeen dad aan looga qaateen ahayn kutub lagu ururiyey oo maanta taal almawduucaat baa ka mid a ibnuljawsi uu qoray silsilat alaxaadiid aldaciifa walmawduuca sheekhu lalbani uu qoray iyo kutubta kale axaadiida daciifka sheekhu uu ku uriyey sida daciifu ljaamic iyo daciifu altargiibi waltarhiib lilmundiri iyo daciifka axaadiida daciifka uu ka xule uu ka saaray sunanta afarta sunanu tirmidi iyo sunanu abi daawuud iyo sunanu nasaa-i iyo sunanu ibni maaja marka xadiidka rasuulka laga soo warinaya waa war qof lagaaga keeno o lagu yihi qofkaas sidaasuu yidhi ama sidaasuu sameeyey warkaasi soo runna ma noqdo beenna ma noqdo soo war aad qaadato oo aad ku camal fasho iyo mid aad diiddo labadaba ma noqdo maxaa sababo ah waxaa sababa cidda warkaa kuu keentay soo maa oo cidda warkaa kuu keentay haddii ay tahay cid looga qaateena oo aada run ku taqaano iyo inuu yahay qof wax weelayn karo wax xifdihi kara warkiisa waad aqbashaa hadduu yahay qof aad been ku taqaano ama qof hanfadaayo warkaba aan hubsanba ama qof dhoohanoo wuxuu maqlay iyo wuxuu arkay aan maskaxdaba ku qaadi karin warkiisa waad iska hubsataa soo ma oo haddaad aragta cid kale oo looga qaateenoo warkaa sheegaysana waad qaata waad rumaysataa haddii kalena warkaasi waraan jirin baad ka soo qaada xadiidku waa saasoo kale dee rag baa soo warinaya oo xadiid kastaa wuxuu leeyahay silsilad ragoo isdaba taalla oo ninkii sheekhii kitaabka qoray wuxuu leeyahay hebel baa ii sheegay xadiidka hebel buu ka soo wariyey hebelle hebel buu ka soo wariyey hebelle hebel ilaa saxaabigii la gaadhay ilaa rasuulka la gaadhayo xadiidku inuu daciif yahay markaa maxaa lagu garanaya raggaasunbaa miisaanka la saaraya raggaa silsiladee xadiidka soo wariyey ee warkaa isu soo dhiibdhiibay raggaasi hadday dhammaantoodba noqdaan rag waxa weeyaan cadaalad leh oo warkooda raalli lagu noqon karo la rumaysan karo oo le diin ka celisa been abuurka oo ay noqdaan rag waxa weeyaan xifdi leh oo waxa ay maqlaan qaybi karo weelayn kara madmadow kalena warkooda aanu ku jirin markaa xadiidkii waxa la waa xadiid saxiixa ama xasana baa la odhanaya haddii raggaa qaarkood ay yihiin kuwo aan cadaalad lahayn oo nin beenaalaadoo sanadkii lagu dhex arka ama nin macaasi lagu yaqaano kabaa'irta sameeyaa sanadkii xadiidka lagu dhex arka sanadku waa silsilada ragga ee xadiidka soo warinaysa
ama waxaa lagu dhex arkay nin dhoohanoo aan waxba xifdiyin oo wuxuu maqlaaba uu ka baxsado oo iyadoo lagu yidhi hebel baa yimi hadhow dadka markuu u sheegayo odhanaya hebel muu iman oo si kale warkii u qaadanaya waxaa la odhanaya markaa xadiidkaasi waa daciif oo xadiidkaasi lama aqbalayo xukum laguma dhisi karo bimacnaa rasuulku inuu yidhi ama sidaa inuu sameeyey mid sugnaatay ma aha waxaad isweydiin kartaa oo raggan waaye maxaan anuu ka garanaya ragga qarniyadii hore noolaa kooda beenaalo ahaa ka aan xaalkiisaba la garanahayn ka wax xifdihi jiray ka aan xifdi lahayn ka dembiye samayn jiray ka aan samayn jirin rag baa taa hore uga sii shaqeeyey oo maktabadaha waxaa ka buuxdo kutub leedhaa kutub الrijaali والtaraajim waxaa rag xadiidka soo wariyoo dhami way liisgaraysan yihin nin walbana xaalkiisaa la caddeeyey waa ku hor qorantay hebel 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 oo reer baqdaadi waa beenaale saasay culimmadii ka hor qoreen waqtigiisa joogtay markaad aragto xadiid uu soo wariyey khalaas waa xadiidkii beenaale hadleed oo dhinac baad iska dhigaysa hebel 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 waa daciif oo xifdigiisaan fiicnayn ama waa nin waxa weeyaan si kale ayay wax uga sii yihiin kutubtaasaa loo noqonaya waana hawl adag waa shaqo adag casriganna shaqada kala xulista iyo kala saaritaanka xadiidka rasuula ka sugnaaday iyo ka kale caalimka qabtay hawshaa ee ku ixtisaabay aynu rajaynayno inuu ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro had iyo jeeraalana dadka markay axaadiida ka warramayaan axkaamtiisa ay cuskadaan oo idhaahdaan hebel baa saxiixiyo hebel baa daciifiyey waa caalimkii weynaa la odhan jiray alalbani maxamed naasir uddiin alalbani asalkiisu wuxuu ka soo jeeday waddanka albaniya waa yurub isagoo yar buu aabihii la soo qaxay oo suuriya uu la yimi markii shuuciyadu ay balanbalinaysay muslimiinta halkaa ku nool caalimka xadiidka casriga loo qiray buu noqday waxaanu mudan yahay muslim kasta inuu u duceeyo ilaahay u naxariisto wallahu aclam baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra su-aasha u dambaysa sheekha aynu weydiinaynaa waxa weeyaan saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ka asaxay xadiid macnihiisu uu tilmaamayo afdalu siyaami man saama wahuwa fi ljihaad soom waxaa ugu fadli badan qofku soomka uu soomo isagoo jihaad ku jira afiiduuna baaraka allahu fiikum xadiid ereyadiisu ay sidaa yihiin anigu maan arag laakiin waxaad jirta axaadiid tilmaamaysa soomka qofku uu soomo isagoo jihaad ku jira mar haddaanu soomkaasi daciifin ahayn oo jihaadka inuu ka taag dareeyo sabab aanu ugu noqon ahayn inuu fadli badan soomkaasi leeyihi waxaa ka mid a xadiidka saxaabiga abu saciid la yidhaha rasuulka uu ka wariyey bukhaariyo muslimna ay soo saareen wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man saama yowma fi sabiili illah baacada allahu wajhahu can innaari 70 khariifa qofka maalin sooma fii sabiili illahi isagoo ku jira ilaahay wejigiisa wuxuu ka fogeeyaa naarta masaafo loo socdo 70 dayrood macnaa 70 sannadood waxaa kaloo imaamu tirmidi sunantiisa uu ku wariyey inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi man saama yowma fi sabiili illah jacala allahu baynahu wa bayna annaari khandaqan kama bayna alsamaai waalard qofka maalin isagoo fii sabiili illaahi ku jira sooma wuxuu ilaahay isaga iyo naarta u dhaxaysiiyaa god weyn godkaasoo baaxaddiisu ay leeg tahay inta samada iyo dhulka udhaxaysa macnuhu waxa weeye naarta aada looga fogeeyaa kelmaddaa fii sabiili illahi xadiidka lagu sheegay waxay culimmadu yidhaaheen sida ibnuljawsi oo kale raximahullah haddii kelmaddaa la sheego waxaa asala in looga jeedo jihaadka waana sida bukhaari axaadiidaasi uu ka fahmay wuxuu u baabaystay fadliga uu leeyahay soomka la soomo jihaadka dhexdiisa in badan oo saxaabada ka midna waxaa ka sugnaatay iyagoo jihaad ku jira inay soomi jireen laakiin waa qofka soomku caado u noqday ee aanu culaysinahayn tamar darrana aanu ku ridahayn oo hore ayaynu usoo sheegnay qofka jihaadka ku jira haddii soomku uu daciifinayo tamar darro uu ku ridaayo inuu qofkaasi afuro oo rasuulku saxaabada wuxuu ku uhi inakum musabbixuu caduwikum hadan waalfitru aqwa lakum faaftiruu cadowgiinii baad berri ku waaberiisanaysaan
waxaana tamartii awooddu ay idinku jirtaa inaad afurtaan ee afura marka fadligani wuxuu ku koobnaanayaa qofka aanu soomku jihaadka ka daciifinahayn siduu ahaa xaalka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam waxkam billahi tawfiiq وصلى الله على نبينا محمد